كما مانتا aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga uu xisbi xaakim yahay xisbi mucaarad banaan joogayn xisbi xaakim joogo oo khilaaf galaan qaranka dhibaato ku yahay inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga Awdal oo xadaafiir doorasho aad u kala kaxaysay 2017 inaan mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan uga tanaasulo maadaama aanu adigi maanta waxa la nuway basawata nuway waraab cuna mardaan adigi samaroona anu madaxweynaha qaranka waxaan ahay dadano madaxweynaha samaroon baan ahay ama Awdal baan ahay marka waxay noqotay inaan kayga hadoo ila tartamay isagu uu soo joogsaday inaan ka tanaasulo muday waxaan leeyahay horta marka hore u mahadnaqayaan runtii constituency ka soo jeeday runtii oo markaan hawsha galin rognay xisbigana galin xal ka sugnay annagu samankii dhammaan go'aan ka qaadanay inaan tanaasulo oo aad iyo aad runtii constituency aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo noqday oo iyaga qudhoodu markay arkeen xisbi kulmiye saari kari way yiri u kala gooya dibna tii dhashay tiri ma kala gooynina u daaya tiri tolkayna gobonimada si qaateen oo inta xisbi kala guulaha gabadha u daaya tiri ay noqdeen la kala gooyn maaye aad iyo aad baan iyaga ugu mahadnaqay runtii waxa kale oo soo dhaweynaya walaalahayga iyo constituency uu ka soo jeedo walaalkay wasiir Maxamuud saajin inay igana xisbiga haday yimaadeen oo xisbiga bahweyntii kulmiye ku soo biireen iyagana waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan taageerayeen intaan ka soo waxaan leeyahay xisbigeennii waxa go'aan kaas qaadanay waa nagu taageertaan walaalihiina soo dhaweysaan idinkuna xisbiga u baahaydeen walaalihiina soo kordhayna soo dhaweysaan iyaan aad dhamaantood gudaha iyo dibadda meel joogan taageerayshaydi يانو يانو